السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتيال يداوليال وحخاتك تليفة كتيرة التوسع عاقل أحمد عباسي إبراهيم أو كمل قرمشوط الصوماليات في المكان كمل وحكرة كتوسع صول سنة عين وقصة ودك أمريكا إن عاقل صدبه نحمده ونرصه حريرتي محاد رصه حريرتي waxaan walaalahay utaanta waan ka qaaday aad iyo aad baan ku salaamay xaliga sharow waxaan kula soo xiriiray saddex qodob oo yaryar baan doonayaa inaan ka hadlo oo uu ka mid yahay shirka xamar ka dhacay goboladan sool iyo tanaag iyo cayn ninkii yimaada xamar ee madaxweyne ka noqda bahal baa jirta islaamada oo sacuudiga laba sano shaqaysa markay dhacdo qofka loo jidiidiyo dulmiga iyo dhibaatada gobolada ka jirta xamar looga soo jidiidiyo mar walba kuwa dulmiga iyo dhibaatada ku haya iyagoo dhani ay ka daashay loo soo jidiidinayo xamar looga soo jidiidinayo waxyaabahaasanu la yaabnay oo aanu qaadan weyne qalbigayaga iyo dhagaha iyaguba qaadan waayeen aada iyo aadna waa uga xunnahay midaanu yeelano ama nagu soconaysa haddii laysu jiidiyo haddii kaleba ma ay aha oo nagu soconaysa maaha laakiin axmed go-aamaa soo baxay waxaa la yidhi xildhibaanada soomaaliya laba maamul goboleed ha lagu doorto guddi ha loo saaro 100 qof ha soo doorto qodobo noocaasa soo baxay maxaa ku sugan haddii saa la yeelo waxa weeye adeer wax dana oo goboladan ugu jira ma jirto kuwii hore ee lagu dooran jiray puntlandna waxay ka dhaxleen dil iyo dhiig badan iyo barakicin ayay ka dhaxleen waxaanu anagu ogolahay waxaanu nahay dalka soomaalida deegaanada waaweyn ee ugu dadka badan baanu kamid nahay waxaanu la siman nahay oo aanu kamid nahay soomaalida deegaamada ilaahay ku beeray kala degaan in maamulkii xamar yimaadaada uu ka shaqeeyo dadkan jiritaan la-aantooda iyo dulmigooda iyo xumayntooda uu ka shaqeeyo kii yimaadaada oo uu ku maslaxo laba maamul oo aanu u dhaxayno somaliland iyo puntland la yidhaaho oo dalkan iyo dadka kan wax weyn u geystay oo aan laga soo waaqsan karin kii yimaadaba inuu ku maslaxo oo uu yidhaaho kala qaybiya dhiig ku kala qaybiya ra'yi ku kala qaybiya maskax ku kala qaybiya oo ku soo salaamo taasaa wax aada looga xumaada ah markaad sidaasana ka raynaysa kii hore ta dambana ay kasii darto waa mid mashaakila weeye wax loo dulqaadan karana maaha adduunweynaha iyo soomaalida inta af soomaaliga ku hadasha iyo dadka degaankaa dega ballaadhan waxaan u sheegayaa oo aan hoosta ka xariiqaya naftu mar bay go-daa gobonnimo haddaan loo dhiman lama helo horumar haddaan loo dhiman lama helo dadaal haddaan loo gelin gobonnimo lama helo waxa idinku dhacaya iyo dulmiga idinku socda ama dawlad soomaaliyeed oo timaadaa idinku samaynayso ama kuwa dhiiggiina iyo dhaqankiinaba moora duugay ay idinku samaynayaan waad aragtaan nafta markuuday baxdaa ha ka dulqaadanina hana yeelina hana qaadanina agtiinana yaan mar qura ayna ka dhicin wax doorasho iyo wax doorasho lagu tilmaamayo oo gacan ku rimisa oo loo soo saxeexay rag marnaba ha qaadanina marnaba boocama maanta ku shiraya waxaan leeyahay oo aan u sheegayaa beelweynta s t aan u sheegayaa waa in hadday go-aan masiir inii ah oo jiritaan inii ah intii horay ini baabi'iyeen oo magaciina bi'iyeen oo waxba inii qaban waayeen dibay inii geystaan isimadaasi mooyaane hadday maanta go-aan adag oo meel mar inii ah oo aad soomaali kaga mid noqotaan oo aydi ninna hoos tegin idinka liita hadday soo saari waayaan bilaa caleyg waxaan dadweynaha shacabka gobolada ka codsanayaa inay gacan bira nimankaasi ku qabtaan oo aadaan meelihii ay joogi jireen marba dhibaatadiina laga soo diri jiray waa inay aadaan
qodobka saddexaadan ka hadlaya waxa weeye habeen dhawood waxaa ka soo baxay madaxtooyada puntland ciidan koofiyad casa ayaa ka soo baxay laascaanood galbeedkiisa magaalo ku taalo xirxidh la yidhaaho yay caruur ku laayeen guryo badan ku dumiyeen sababta meeshaas soo gashayna cid garanaysaa ma jirto waxa weeye isimadu meelahay joogeen bay soo mareen nimanka madaxweynaha ka ahaa that time puntland wasiirada saraakiisha xildhibaanada ugu badan ee goboladan iyo meelahan la duminayo caruurtan la laynayo ku abtirsada ama la yidhaaho waa laga doortay ayaa joogay waxa weeye intay wax soo dileen caruur dileen oo guryo dumiyeen bay iyagoo afka iyo gacmahaba dhiig ku leh ayay ku noqdeen garoowe oo ayna ka hadlin isimadu ayna ka hadlin waxay lahaydna kamay jawaabin waxay ahaydna may sheegin kuwaasna waxaan leeyahay waanu inu ognahay adduunkana taariikhda inu qoraysa somaliland iyo puntland doorashooyin ay wataan iyo waxay suubta ku sitaan waa inaad dhiig iyo dil ka xigtaan oo naftiina iyo dadkiina iyo caruurtiina difaacataan nimankaa isimadana taasaan ku adkaynaya go-aanka haddaad maanta dadkan wax ku noqonaya aad meeshaad ku urursan tihiin awalba meel waad fadhiisan jirteen go-aan idinka iniidan aad ka soo saari jirtaan meela ku aadaan kii oo kale haddaad wadaataana maca salaama haddii aad masiirka dadkan iyo ceebta ini saaran iyo dhegxumada ini saaran aad maanta go-aamo ka soo saarataan dhaxalgalow ana waa layni sugayaa